Şayet bugün Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. xilli yuhuuddu ay ku goodinayso inaysan joojin doonin dagaalka ay ka wada dhulka Falastiin ayna sheegtay inay burburinayso dhismayaasha maamulka iyo garabka hubeysan ee muqaawamada Falastiin ayay dowladda Turkigu wadaa dadaal caalami oo ku wajahan sidii dhacdadan jawaab adag looga bixin lahaa. war qoraal oo ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee Turkiga waxaa lagu xaqiijiyay in madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan telefoon kula hadlay qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalkoodu ay leeyihiin codka diidmada tooska ee golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Erdogan ayaa wada hadal qaatay ku dhawaad saacad la yeeshay dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan xagga Gaza iyo Qudus waxyaabaha ay ka wada Israa'iil. madaxweynaha Turkigu wuxuu sheegay inay ka shaqeynayaan oo ay dadaal caalami ah u galayaan sidii loo qaadi lahaa tallaabo adag oo ka dhana Yuhuudda. wuxuu ficilooda ku sifeeyay kuwa arxan daran oo ka arhadan dhammaan ficil kasta oo xuquuqda aadanaha ah. afayeenka madaxweynaha Turkigu wuxuu tilmaamay in Erdogan uu telefoon kula hadlay dhammaan hogaamiyaasha dunida ee la dhacsanayn waxa ka socda dhulka Falastiin uuna u sheegay dadaal kasta oo lagu xakameynayo arrintaas inuu ka shaqeynayo. waxaan carabka ku adkeeyay in golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay tahay inay farageliyaan arrinta ka hor inta aysan xiisadu sii kordhin. goluhuna waa inuu siiyaa go'aan cad oo ku aadan joojinta weerarada lagu hayo shacabka Falastiin ee ay Israa'iil wado ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay Turkiga. laakiin Yuhuuddu waxay ku hanjabaysaa inay sii wadayso dhammaan weerarada ilaa sida ay sheegtay ay tirtirayso awoodda xoogga hubeysan ee difaacaya dhulkooda Falastiin. Şayet bugün Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin haddii aynan ilaalin karin karaamada Masjidka Al-Aqsa maanta beri waxaan ku guuldaraysan doonaa inaan ka hortagno in indhaha sharku ay u soo jeestaan Maka. gaar ahaanna maskaxdeennu kama hortagi karto. Qudus iyo Al-Aqsa waa khadkeenna cas. İslam dünyasındaki ülkelerin şu atılan adım waxaan dareemayaa naxariis markaan eego falcelinta ay dalalka islaamku ka bixiyeen ficiladan. halimize acıyorum. Turkigu waxa ay doonayaan in ciidan nabad ilaalin oo degdeg ah kana socda dalal kala duwan loo diro Qudus iyo Gaza si ay u abuuraan jidka arrimaha gargaarka una sameeyaan ka caagan dagaalka ayadoo laga hortagayo qorshaha Yuhuudda inay qaadato dhul cusub oo ay leeyihiin shacabka Falastiin. qaar ka mid ah warbaahinta Turkigu waxa ay tabiyeen in madaxweyne Erdogan telefoon uu kula hadlay ra'iisul wasaaraha dalka UK iyo hogaamiyaha Jarmalka oo kala hadlay si looga hortagi lahaa tuulaanka lagu soo qaaday shacabka Gaza. wuxuuna u sheegay in dhammaan ficiladaas aysan noqon doonin kuwo ku koobnaan doona dhibaateynta shacabka Falastiin. sidaas oo kale wada hadal telefoon oo ay yeesheen madaxda Qatar, Jordan, Kuwait, Malaysia iyo Turkiga ayaa looga hadlay sidii garab loo siin lahaa shacabka Falastiin looguna taageeri lahaa inay difaacdaan dhulkooda ay xaq u leeyihiin si ay ugu noolaadaan si nabad iyo deganaan ah. madaxweynaha Turkiga iyo amiirka Qatar waxay isla qaateen inay bilaabaan dadaal caalami oo lagu ciqaabayo Israa'iil ayadoo la marayo waddo kasta oo lagu hor joogsan karo qorshaheeda guracan. waxaana labada dal ay yihiin kuwa hadda gacanta ku haya adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta ee ka jira dhulka Falastiin gaar ahaan marinka Gaza. Erdogan waxa uu telefoon kula xiriiray si wada jir ah madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas Abu Mahsin iyo Ismaaciil Haniya madaxweynaha xafiiska siyaasadda ee Falastiin. wuxuu u sheegay in Turkigu ay diyaar u tahay tallaabo kasta oo ka dhan xadgudubyada Yuhuudda ayna sii wadayaan taageerada Falastiin nooc kasta oo ay tahay sida lagu cadeeyo warka Turkiga. waxa Israa'iil wadaa duulaankii ugu cuslaa oo ay ku qaadayso marinka Gaza iyo Qudus. waxa ay doonaysaa qaadashada dhul cusub oo ay Falastiin leedahay. ne yaparsınız? Kıyameti koparırsınız. Peki Türk medyasını niye almadınız bu toplantıya?